Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada barashada Microsoft Office 2019 and 2020 maanta cashirkii hore waxaan kusoo qaadanay inuu ka kooban yahay qaab advanced loo dhigi doono 9 qaybood uu ka kooban yahay marka maanta qaybtii koowaad ee ugu horeysay ayaan maanta baranaynaa qaybta ugu horeysay koowaadna waxa weeyaan file salka ka muuqato waa file baan maanta baranaynaa file hadaba imisa qaab ayaa hoos yimaada ama imisa nooc ayaa hoos imanaya waxa hoos imanaya waxa weeyaan qaybaha halka ka muuqda ayaa hoos imanaya waxa hoos imanaya waa saddexda qaybood aan soo diyaarinay file waxa hoos imanaya new oo noqonaysa hadii aan sharaxno qaabka loo furaayo warqad cusub open waa furidii new na waa qaabka loo dooranayo warqad cusub open waa in warqad cusub la furo info oo noqonaysa qaabka infosyada ayada loo eego save waa save crane save as na waa dhamaan wada save crane oo noqonaysa qaybta halka amba qaybta koobaad ee line-kan aynu sharaxnaa amba qaybta hadaan soo dhaweeyo qaybta dooga shanta qaybood ay ka koobsantahay halka qaybtan kale ay ka kooban tahay printing oo noqonaysa in la daabaco warqadii amba qaabkii loo daabacayay share baa ku xiga qaabkii loo share gareynayay export waxa weeyaan warqadii in la raro oo laga dhigo PDF oo kale picture oo kale waxyaabo kala duwan laga dhigi karo closer waa gebi ahaan head warqada account waa qaybta saddexaad oo qaybtan marka noqonaysa iyaduna saddex qaybood ay ka kooban tahay xagga qaybtaas afar qaybood ka kooban tahay qaybtaasina shan qaybood ka kooban tahay qaybtana saddex qaybood bay ka kooban tahay saddexda qaybood ay ka kooban tahay waxa weeyaan qaabka looga dhigayo account cusub la furayo feedback qaabka loo sameynayo feedback iyo options qaabka loo dooranayo optionno kala duwan feedback waa dib waxa weeyaan wax adigu feedback ka bixin accountsna waa qaybaha kala duwan optionsna optionada kala duwan hadaba inta ayaan isla eegi doonaa inaga oo eegayna word halka ka muuqda ama Microsoft Office halka ka muuqda file baan tagaynaa file markaan soo tagno halka maxay nooga soo baxaya shaashada halka nooga soo baxaysa ee marka soo marinayo waa shan qaybood iyo afar qaybood iyo saddex qaybood home weynaga imika joogno meesha home ku qorantay waa ka dhamaan halkan waxa ka muuqda faylal cusub waxa ka muuqda black document waxa ka muuqda healthy car checking waxa ka muuqda formula in our certificate online qaybo kala duwan ayaa ka muuqda oo waraaqa hay oxygen letters ku qoran tahay new hadii aan ku dhufano waa qaabka loo dooranayo warqad cusub new watan aan ku dhuftay new maxay noo soo baxay shaashada ma noo soo baxday oo waraaqa diyaarsan hadii aad doonayso inaad diyaarso halkan waxa ku qoran personal iyo waxa ku qoran office halkan ba searching waxa kale searching kana online tablets ama tabletyo kala duwan oo diyaarsan marka halka dhamaan waa kuwa ka muuqda tablets kala duwan oo waraqo cusub oo nooca doonaysid nooc kasto doonaysa waa diyaarsan tahay kaliya waad buuxinaysaa open waxa weeyaan warqad cusub fur open halkeed ka furaysa warqad cusub ma recycle bin kaad furmaysaa ma drive waa ka soo furaysaa ma PC kaad ka soo furaysaa ma iPad ka ku dartay ma baro waxa ku dartay browserka dhamaan waxay sheegayaan qaabka u furan lahayd warqad info waa qaybtan info waxay sheegaysaa koow saddex qaybood bay sheegaysaa hadii halka furno waxa noqonaysa always inaad open warqad aad furto private ana open karayso control keedina hagaajiso waxa weeye protect documents sida qaabka loo protectiga loo ilaaliyo documentiga marka waxa soo iskalaya qaybahan kala duwan inaad password ku xidho inaad reset garayso inaad ka saarto inaad digital signature saxiix qaabka ugu hagaajin leey market finance safarto kale u hagaajin leey marka xoos kale koow laba dhamaan qaybaha ilaa 6 qaybood 5 qaybood ba hoos kalaya ayada ka eegaysa waa info waxa kale checking kare for issue xogtan checking kare inspect documentiga hadoo sala checking waxa checking kare inta documentiga headline-kiisa properties qaabka loo diyaariyo personal information kiyo kale accessibility-giisi compatibility-giisi dhamaan
qaabka isu garan lahayd weeyaan ayaa invoice hoos galaya waxa ku xiga manage sida loo manage garanaya miyaad remove garanaysaa miyaad delete garanaysaa halkeed si gelinaysaa browserkeed filekan gelinaysaa amba aad doonaysaa inaad geysato save waxa weeye save garayn iyo save as waa qaabka u save garanaysid marka save garanaysa warqadda waa inaad save as ku dhufataa waa inaad this pc ka doorataa meesha ku qorantay then waa inaad halka imanka haddaan soo ku dhufano ama browserkaad ku dhufanaysaa deetana halkana ku save garaysaa this pc waa ka ma documentiga ma desktopka ma documentiga ma downloadka ma muusikada ma pictureska xagee ayaad warqadii ku save garanaysaa save markaa siinaysaa marka qaabkaasi waa qaabka loo save garanay halkii tools ku qoran tahay oo kale wuxuu ku leeyahay general option ka fur password ka xidh marka qaabka passwordka lagu xiray qaabka waan soo wadnaa dil la yiraahdo qaab advanced sidoo kale waxa ku xiga Britain oo noqonaysa daabaco Britain warqadda imanka saasay noqotay aan soo daabacnay aan hagaajinay waa talka ka muuqata marka Britain waa kalkan ku dhufo sidoo kale waxa ku qoran ma laba page baad ka dhigaysaa ma laba page baad ka dhigaysaa ma saddex page baad ka dhigaysaa ma afar page baad ka dhigaysaa Britain ko kale ma lix PowerPoint oo kale selfie looga dhigo waxyaabaha soo dhan ku halkan ku qoran halkaas aad ka hegaysaa share gareba ka xiga halkaad ku share garanaysaa ma people ma dad group people ba ku share garanaysaa ma email baad ku share garanaysaa ma personal online baad ku share garanaysaa website ma post ba dhigaysaa mise waa iska xidhaysaa marka qaabka halka share na waxa weeye qaabka loo share garayo waxa ku xiga oo intigina waxa weeyaan export macnaheedu waxa weeyaan inaad pdf ka dhigto ama waxyaabo kale ka dhigto oo waatan export baad ku dhufanaysaa create pdf xps ayo pdf oo halka ka muuqda close ba ku xigta oo xirisa marka close way iska boodi doonaa hadii close karayno oo inaga xidhmaya weerku laakiin waa close waa xidhis account ba ku xigta account waa kan ka muuqda manage settings ki halkan soo galaya kala duwan saad manage gareyn lahayd aad u hagaajin lahayd ama u sixi lahayd oo kale sidoo kale waxa ku xigaya qaabka office ku eegi lahayd qaabka meelo kala duwan ugu share gareyn lahayd qaabka aad u update gareyn lahayd optionka waxyaabaha soo dhan iyo ku xigaya sidoo kale waxa ku xigaya iyada feedback ka bixi amiyad ismi waxaan oo dhan waa feedback yadiisa lagu bixinayay sidoo kale waxa ugu hooseeya waa options kuna waa kuwa halkan yaala option waxa soo galay general iyo display iyo proofread iyo save iyo language iyo easy of access advanced dhammaan waxa soo dhamma soo galaya oo qaabka loo isticmaalayo iyadana aad dhammaan si wada eegi doono oo kala duwan maanta marka waxaan baranaynaa waa file dhammaan casharadaas oo dhan waxa qabanaya amba dhammaan waxa soo dhan waxa qabanaya waxa weeyaan programka Microsoft qaybtiisa arfaanka waxa qabanaya file oo kaliya amba number 1 sino hore soo sheegnay number 1 ay maanta baranay number 1 ayaa ka kooban 5 qaybood iyo 4 qaybood iyo 3 qaybood waa file oo kaliya weeyaan markaan eegno file oo kaliya weeyaan marka casharka xiga inta soo tubino assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh